guud ahaanba waxaa saaka gobolada iyo degmooyinka Somaliland looga fadhiistay imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada 8aadka iyo sidoo kale fasalka 4aad ee dugsiyada sare guud ahaan waxa imtixaanaadkaasi ka qayb qaadanaya ku dhawaad 30,000 oo arday gobolka Togdheer waxaa saaka arooryadii hore ka bilaamay qaadista imtixaanaadka shahaadiga waxaana imtixaanaadka shahaadiga ee gobolka Togdheer u fadhiistay ku dhawaad 5,000 oo arday mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer iyo barasaabka gobolka ayaa faahfaahin ka bixiyay imtixaanaadka shahaadiga ee ka bilaamay gobolka Togdheer iyagoo fariimo kala duwan u diray waalidiinta iyo ardayda u fadhiisatay imtixaanaadkaasi guud ahaan gobolku ardaydiisa secondary-ga ah maanta imtixaanka u fadhiisatay gobolka Togdheer 1650 arday oo secondary ah iyo 3419 bareerada ayaa saaka u fadhiya gobolka Togdheer waxaanay ka kooban yihiin goobuhu 10 goobood oo secondary-na waxa ka socda imtixaankii secondary-ga ahaa oo ay 1600 ku galayaan 16 goobood oo iyaguna ay ku galayaan ardaydii eerarka ahayd 8 goobood oo eerarka ahayd waa miyiga 8 gooboodna waa gudaha 10ka secondary-ga 4na waa dabadda 6na waa gudaha guud ahaan 16ka goobood oo ay ku galayso tirada ardayda ah 1650ka secondary-ga iyo 3419 ayaa saaka imtixaankii looga fadhiistay uuna si wanaagsan dhammaan gudo iyo dabadba waxa uu uga bilaabmay si wanaagsan oo habsamiya oo nabadgelyo ah waxa si rasmi uga bilaabmay guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan xarunta gobolka Togdheer imtixaankii shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe runtii imtixaankanu wuxuu inoogu bilaabmay ilaa hadda sida indheheena aynu ku arkayno jawi aad u wanaagsan oo waan jirin wax dhibaato aan jirin ardayda waxaan u rajaynayaa guud iyo nasiib wanaagsan inay imtixaanka maartay ka soo hooyaan waliba waxaan ardayda halkan kaga boorinaya inay maartay ka mid noqdaan 10ka arday ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ugu sareeya inay inta ugu badan ka soo baxdo gobolka Togdheer waxaan kale oo runtii jecel maanta inaan halkan ammaan iyo bogaadin uga soo jeediyo ardayda shaqo qaran ee gobolka Togdheer oo runtii muujiyay daacadnimadooda iyo dulqaadkooda iyo walaaltinimadooda kadib markii tirada ardayda ay u baahatay wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer uga baahatay iyo tirada ardayda shaqo qaran ay kala bateen iyadoo ardayda shaqo qaran ee gobolka Togdheer wiilaliyo gabdhaba ay yihiin 160 arday wasaaraduna ay u baahatay 80 arday arrinka markaan ka wada hadalay aan maaragtay anagii ardaydii wasaaraddu ka wada hadalay dhalinyaradaas waxay ogolaadeen runtii wax lagu faano oo lagu daydo oo cid kasta ay ku dayto maadaama markii ay nala qaateen oo waxa weeyaan ay soo dhaweeyeen fikir ah in 80 ardayna shaqeeyaan 80 iska joogan wixii dheefa ee halka ka soo galana ay si siman inta shaqeysay inta shaqeynaba ay u qaybsadeen maraan wasaaradda waxbarashada Somaliland wax ka weydiinay sababta ay u xiran yihiin qaar ka mid ah dugsiyada ku yaala degmooyinka gaar ahaan dugsiga sare ee degmada Doqoshay waxa uu gudoomiyuhu kaga jawaabay sanadkan nasiib yeelan inay ka soo qayb galaan dugsiyada waxa ka mid ah dugsiga degmada Doqoshay C-Tiriike oo xiran muddo ku dhawaad 5 bilood wuxuu xiran waxa la sheegay inuu tahay dhaqaalii macallimiinta loo wada wasaaradda waxbarashada kala wada inay bixiso mushaaraadka macallimiinta dugsiga degmada Doqoshay C-Tiriike muddada 5 bilood alba gudulaabay horta aan ku saxo ardaydu dugsiga imtixaanka ma galay ardayda gasha ardaydu way fadhiyaan imtixaanka waxaanay fadhiyaan iskuulada kale dugsigana waxa ku jimi waxoogay financial problem ayaa ku yimi dhaqaalaha macallimiinta la siin jirayna bulshada ayaa ka bijirtay gaab ku yimi aawadi ayuu arintaas u dhacday imikana hadii la yiraahdo sanadka dambe inaan dib u furo ardayda ka soo qayb galay dugsiga degmada Doqoshay ka soo qayb galay imtixaanka laba qaybood bay u qaybsameen labada qaybood oo qaybsan waxay ku jeebkood tahli kareen iska bixiyaan kharashaadka waxa loo soo gudbiyay dugsiyada ku yaala gobolka Togdheer kuwa kale baa jira tahli kari waayeen iska bixiyaan kharashaadka oo ku sugan wali baadiyihii waan imtixaanka ka qayb galin waxa leedahay ardaydaas ma jiraan maya waxa runtii muhiim ah ardayda Doqoshay mar labaad baan kuugu celinayaa markii iskuulkaas uu ku yimi gaabku waxaan u qaybinay dugsiyada gobolka Togdheer duruufaha dadku kala duwan yihiin waa dhab laakiin anagu waxaan naga go'aan oo diyaar u nahay arday kasta oo waxbarasho diyaar ah inuu helo waxbarasho Abdirahman C-Tiriike telefishinka horyaal magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer